اللهم أولادي اجعل مستقبلهم أجمل مما أريد، وأسعدني برؤيتهم يكبرون أمام عيني كل يوم وهم في أفضل حال. اللهم إني استودعتك أثمن أشيائي وأقربها إلى قلبي، فاحفظهم لي يا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام كدب ولاشين بدان إبراهيم وإذن الله إسوسو نقود وناكسن intaas kadib meesha sa aragteen fadhiga sasa loo soo helay sasa wasaq looga soo dhigay. Horta waxa uu soo gaday maryahan ujeedin brugmarkan fadhigana waa uu soo gaday kuraasta miiska qadadana waa uu soo gaday kuraasta waxa way ka sire kor saaran fadhigana kan weyn waay halkan xab waxa ku tijaabinayay kursiga qadada dag uu ku noqdo ma fahanteen okay uu ku noqdo macnaa madow baa rabay laakiin meesha kadinaya madow ma oolin saas darteed brugmarka iska soo qaatay kadib waxa ku dhahay qolka maxaa la rabaa in rinji la mariyo sasa loo helay qalina lagu qorqoray fadhigi waa lagu baashaalay wiilashi waxa wacay fadhigi dhaqaay ayaga hadeer dhag ka soo dhigi doonaan qolkan hadeer waxa ka soo saarayna maalmaha ka yar mashquul iska caajisna waxa ka soo saari doona qolkan makiya masahin la dhaho kan ma Soomaaliya ku yaala masahin la dhaho fahanteed teeda kale videoyashan wuxuu yeelan doona part 1 iyo part 2 part 1 waa ka had fiirsanusin part 2 insha Allah baa idin soo gelin doona waxaan ku dhahay maxaa leenahay casuumaad kala kacsan soo dhaweyn qurux badan hada soo dhaweynta kala sharaf badan ee soo dhaweyn sharaf badan fahanteen yaa ciyalkayga abuuda soo socdo meeshana waxaan ku dhimad qaanin kal iyo laab ka dhigeena maalmahan aad bi aad u caajisnaa saas ma mashquulin qolka fadhiga ilmiga uu sii daayay waxa ku dhahay saujideena loo galay kadib waxa ku fadhiga waa la isoo dhaqay laakiin wili xoogo uu iska yar qoyan inkastoo qoyan zaid uu san ahayn uu leer u baahan yahay hadhow soo ku soo bixi doona insha Allah isla arki doona meeshan waa aniga iyo mariyo ku mashquulsan yaa waxaan ku dhahay qaybkooda quruxdooda la yaaban oo aan taaganay ilmaha wallahi wax dambe igama wasaqaysin kana idin gelina maadaama ani guriga ugu yar yahay saddex qol aniga ima anfacdo ugu yaraan 5 qol ay ugu filan ma fahanteen laakiin waxa kan ku meel gaar ah oo si deganana insha Allah teeda kale to anaka waa guri aleen madiin dhaxdeedna laga dhisaa mardhow insha Allah anaka waxa waa guri aleen oo waliba weyn oo qurux badan laakiin madiin dhaxdeed ma aanin madiin ina dhaafo marabi ma fahanteen bash waxa ku dhisaa caajibina ilaa ina soo barsadara guriga saaxiibada u socdaa gabdha ilaa mariya i balabisay waxa ku dhimeeshana sirteeda sasli ugu diyaariyay biyahayga qabowga kadib cilaankayga dhac isku soo siinoya ma fahanteen teeda kale to hurdaawa ka bixila ahayba gacanta markii lii dhameey waa hurde gacanta kale la isaaradana waa hurde lugihiga la isaaray waa hurde bisinka hurdada maxaa ku daba dhigaas dhamaanta yaa kadib waa kana waxaan ku dhaw anigii hurda ka soo kacay wajigayga dhab wajeedin hurda wali ka muuqato hurdana laga dhirgeynaa la yaabanaayba hadeer waxa ku dhahay gacantan aliga dijina ma sha Allah tabarakallah ilaahay gacanteeda u barakeeyo ciilankan iyo marisi aad bi aad gacanteeda u fadhiisa ma fahanteen ma sha Allah ciilankeeda waxaan ku dhahay aad u qurux badan yahay ilaahay gacanteeda u barakeeyo ilaahay shaqadeeda u barakeeyo aamin insha Allah kadib lugihiyaal isoo saaray lugaha markii la isaaray laakiin yaa waxaan ka sheegi kar maahan jeefna ma jirin joogna ma jirin waa sheekada naag usbuurna cilaan u saaraa dhibkaas ka mareysa ani gabadh isku rafaadna inta sirista meeshana waxa imaad mid qaaniin qolkii fadhiga la isiirinjiyay xayaada qalin ku qorqortay kuwa kale ma ku qorayaan buugaagtooda haystaan laakiin naagtan darbiyada ku dayaysa fadhigi waa kaasa ma sha Allah tabarakallah laftiisa soo baxda ku dhaxaya hadda in soo gaday muddo inkastoo asba biloon yar la u yaalo hadana laakiin sa loo cadeeyay wajidin mahno gooyahan waaweyn ka fadhiga waxa loogu daboolmay taqaanin maadaama qolka rinjil marnaa fadhigan markaas la soo dhaqay inuu fadhiga gaaro rinjiga la diidanaa wixii lacag la gaaray waxa la dhahay ha noqoto gooyahaas la haska noqoto ma fahantay waxaan ku dhahay qolkan waxa laga soo saari doono hada waxa laga soo saari doono idinka arki doono meeshan roogaga iyo wali roogaga ma fidin roogaga laba xabo waa iyo cagsaartooda hal waxa uu talgalay dhaxdaas ina dhigo hal kale to xoogo normal ahna waxa uu talgal qaybta qadada ina dhigo wallahi saa in kugu suuroonoyaan ku dhahay iyo hoosh isugoos isma lahan ma fahanteen fadhigana ku qafiif maanta dhana ka bixi lahay fadhigan waxa ku dhahay kal ila bahadeer laga soo dhigaa kadib hoosh kale tagil doona arki doona insha Allah fadhigana soo ku soo baxo wasla arkeena meeshan waxa soo qaatay biyo muraayada lagu tirtiray waxa raba muraayada weynta ee qadada geeskeeda yaala inaan tirtiro ma fahanteen muraayadaas booskas ma rabin booska loo lahaa oo TV geeskiis TV iyo fadhiga inta u dhaxayso laakiin uu ii gali waayay muraayada aad iyo aad u weynaatay saas darteed markuu gali waayay geeskana iska soo dhigay ma fahanteen waxa ku dhahay kadib waxa dalbaday muraayad kale oo balaaran
oo miiska qadada korkeeda ugu talagal frame meesha ku urib hadan waa ila xumaatay muraayadana ila qurux badnaatay muraayadana dalbaday muraayada la ii dhijiyay ayadina ma sha Allah saani ku soo baxday ujeedinmo hadhooti waxaan ku markii la soo sharaxo arki doontiin insha Allah kadib waxaa ku dhahay daahiyada sidaan la soo xiray ma sha Allah tabarakallah kalarkan horta hore aad way cajbinooya wallahi billah violkan aada uga helay meeshana waxaan ku dhahay barkimiil ugu kala bedelayaa gabadh meesha fadhiso walaashay waaye dukaankay joogto oo waxa kala ku dhahay saacid mid kale geeskaas fadhisay gabadheeda timaa u hagaajinaysa ayadan walaashay waaye ayadan waa la ii soo diray maadaama hada gabadh ay caawisay ay joogin saas darteed waxaa ku dhahay walaasha soo caawiyaa la dhahay qadar xitaa dukaanka ma aadin aniga ila joogtay waxaa ku dhahay guri waa lagu goobto wax moogdiine ya qadrana kulli way yaqaanaan dadka ma aragtay dukaamadii ka adeegto ku xiran seenamna way yaqaanaan seenamna YouTube waa taqaaniin amaleena afta barkimaha kala bedelaysay seenama ahayd kulli waa wada taqaaniin kadib waxaan ku dhahay fadhiga howshiisa socotay waa soo baxay jikada imaaday qudaartii fruudkii wixii dhan meeshan ay ku diyaarsan yihiin meeshan waxaan rabaa inaan ku sameeyo cunto ay nooc ma fahantay inaan malaay ku shiil inaan hilbaar ku sameeyo inaan adduun oo dhan sas macmacaan ku sameeyo inaan fruud ku sameeyo inaan waxaan ku dhahay odkaas u jeedin sameeyo shibska dhaha maynka war haayaba chef caadi isku bedelayba insha Allah videoga part 2 wax walbo aku arki doontiin qaabka uu sameeyay qaabka uu kari qaabka wax walbo uu habeeyay waxyaabaha sameeyay qaabka uu soo dhaweynay ilmihiga qaabka abuud soo dhaweeyeen intaba insha Allah waa arki doontiin wax baa dhararina ya waxaa ku dhahay qudaartan ka warama horta hore wallahi bilaa ma sha Allah ilaahay noo barakeeyo ilaahay noo daawi intaan haysan ilaahay ha siiyo wadankeena nimcaad taalo barwaaqo taalo ya ma sha Allah tabarakallah kadib wixii soo diyaarsaday shaqaagil rabaa fadhigi horta hore soo laabtay fadhigiyo dab iyo holacaha ku dhahay ma sha Allah tabarakallah quruxdiisa shaxdiisa waxa ku dhahay hadal malahan design-kan ka warama ya horta dahab yoolka iyo rooga war iga soo siiya maxaa ku qiimeynaysiin aniga aan siin lahaa wallahi waxaan ku dhahay ya waa kalar cajiib ah teeda kale design-ka qolkana wax loo dhigi jirinba ma sha Allah tabarakallah fadhiga horta hore waa waali cimaamadiisa lama haysan karo miiskaas qadad aa aragtaan insha Allah part 2 waxa ku arkaysiin asagoo ay nooc cunto saas u buuxa insha Allah iyo waliba qaabkii loo diyaariyay ma fahanteen kadib waxaan ku dhahay TV pointigan waa kana saan ugu soo bax ma sha Allah tabarakallah TV pointiga markaan design-ka waxa ka bedelin laakiin insha Allah marka guri kan ka weyn oo shan qola oo qurux badan oo qaabka rab ahaa helo TV pointigan bedeli doona design kale ta ka dhigi doona inkastoo dad u asmay laakiin design-ka wax yar ka bedeli doona insha Allah marka qolka fadhiga asagana waa kana bal maxaa sii lahaydeen aniga 10 lagu qiimeyn lahaa wallahi ka hadal malaha shaqada qaabka uu sameeyo oo waxa ku dhacay qolkan jiifkan asaga horta ma u baahnaba in la hagaajiyo xita u baahan kan markasta sa hagaagsanba ya ma sha Allah tabarakallah teed kale waxa idin sheegaa in xarumaheena la keeno go'yahan u jeedin go'yahan kuwi maal dhaxasa soo gelinay ma ahan waa kuwa cusub ma fahanteen hada u baahan waxa ka helisa dhamaan xarumaheena Muqdisho xarunteena Hargeysa asagoo loo barkin ha helisa hadda kuwan waa 4 barkin kaliya waa $20 waa 6x6 sariirtan saas oo waasac uga yahay u jeedina u maleena ishina idin macallina hada u baahan tahay lambarada ka dalbanis meeshan idin soo saara teed kale please lambarada dukaanka yaalan aniga ma hay dukaanka yaalan go'a u baahan tahay sawir ka qaad WhatsApp ugu dir insha Allah sida ugu quruxda badan lagu soo diiwaan lagu adeega ma fahantay laakiin macnaheedu ani ma ahan lambaradan dhan u jeedin aniga ma hay waa lambara shaqo dukaamadina kala yaalan videoga intaan ka badan waa dheereen waay qaab daro noqonaa waan ku caajisaysin laakiin part 2 idin soo boobsiina insha Allah oo wax walba meesha ku arki doontiin